السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتنا خالقة ميل البؤ الدنيا كغسقنتهن كسو دوادا جنالكنا امراس وحا إذن لايهي عاويسنمو وناكسن waxaa si sharaf leh lagaaga codsanayaa haddii aad janalka emras ku cusub tahay in aad subscribe saarto una gudbiso asxaabtaada si ay ula socdaan barnaamijyada aan halkaani idinkaga soo gudbin doono. halkan waxaan ka soo gudbinaa barnaamijyo wacyigelin ah ee dadka qaarkood ay xayeysiin naga dalbadaan oo loo sameeyo iyo arrimaha bulshada iyo dowlad wanaaga. waxaynu ka fognahay isqabiilaysi, taageerid shaqsi qaas ah iyo u nacamlayn dadka qaarkii. waxaa halkan kusoo gudbinaa barnaamijyo muhiim ah oo aad jeclaysan doontaan oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya iyo wixii wacyigelin ah, khaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed. maadaama anigu aan dhalinyaro ahay, waxaan jeclahay inaan ka hadlo barnaamijyada dhalinyarada ku saabsan oo wacyigelinta ah. social mediaha waxaa hadda kusoo batay dhalinyaro qabiil uun ka sheekeeya ama shaqsi si gooni ah u abaara ayagoo ku ataagaya qabiilka uu kasoo jeedo. shakhsiyaadkaas waxaa waaye waxay qalad ka fahmeen social media. soomaalidu badankeeduna waxay qalad ka fahantay social media. balse caawa waxaan rabaa barnaamijkayga inaan uga hadlo dowladda federaalka Soomaaliya oo la ciyaareysa maamul goboleedyada siyaasad aan horeyba loo arag. wiigii haddana dhaafay ama waxaad maqasheen in imaaraadka carabta uu joojiyey beeskii uu ka dhisanayay berbera. maantana waxaad maqasheen Ethiopia oo gabi ahaanba joojisay heshiiskii 19% ay kula jirtay maamul goboleedka Somaliland. dhanka kale wuxuu cabaad iyo qayladhaan ka soo yeertay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo asagana godkiisu biyo ugu jiraan. waxaan ku hormarayaa ciyaartan cusub ay ciyaareyso dowladda federaalka Soomaaliya. waxaad horey u ogeydeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo imaaraadka carabta in uu calaaqaadkooda yara xumaa, inkastoo safaaradaha aan la kala raran, laakiin calaaqaadkooda aad buu u xumaa. muddadii ugu dambeysayna waa ay soo hagaagaysay, inkastoo imaaraadka arrimihiisu aad ay u muuqdeen faragelinta qaawan uu ku hayay dalkeena Soomaaliya. balse waxaa isa soo tareysa imaaraadka waxaa cadaadis kaga yimid dowladaha caalamka, United Nationka, jaamacadda carabta iyo African Union. waxaysa dib u gurasho u sameyneysaa in ay ka caga siibato arrimaha ay ku leedahay xagga faragelinta qaawan ee Soomaaliya. taasna waxay sharaf u tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo haatan mareysa meelihii ugu wanaagsanayd. inkastoo waqtigeedu uu dhammaad yahay, balse waxa ay qabatay waa wax muuqda, sadar muuqda, su-aal ka dhan. dowladdu kaagama baahna in aad waxyaalo aan jirin aad ku macaarado, mise aad ku macaarado qoloqolaysi, ama aad dadkaaga ah ka weyso inaad dowladda ay ku dhex jirin. dowladdu waxyaalo badan ayay qabatay, howluhu waa ay kala socdaan. gudoomiyaha gobolka Banaadir waa aragteen inuu guryo badan dib u soo celinayo,
xoolo xoog lagu kala haysan kara ma jiraan. shalay sidaan ahayn maanta ma nihin, maanta sida aan ahayn berito ma noqon doono. shidaal qodistii soomaaliya waa ogtihiin inay soo dhawaatay, waxyaalo badan ayaa isa soo taraaya. waxaa waaye arrintu sidii caalamku mooday iyo soomaalida qaarkeed siday moodeen ma aha. waa ogtihiin arrimihii xuduudaha in caalamku uu qaarkood ay ka hadleen ayna soo dhaweeyeen, ayna maraykanka ugu horeeyo oo xiisadu uu soo dhex galay uu dhahay waa in ay labada dowladood wada hadlaan. laakiin dowladda soomaaliya dhaliisha aan hadda u haayo waxay tahay, inkastoo anigu dowladda aan taageero, laakiin dhaliisheeduna waan sheegayaa. xuduudahan soo xirtaa tiri, xuduudaha haddaa soo xirtay ciidamihii xuduudaha ka xirinaysidaaba dalka ku jira oo amisom ka mid ah. soo taas wax kale maaha. waad aragteen in uu axmed madoobe abbaaray yiri turkiga hanaga joojiyay ciidamada uu soo tababarayo. haddaan soomaaliya ciidan loo tababarin, ma ciidan qabiil baad tababaran lahayd? ma ciidan qabiil baad u bahnayd inaad ku qabsato dalka? taasi waa lagaaga soo horjeestay. shacabka soomaaliyeed way fahmeen. haddii 19 sano nalagu shaqaysanayo, maanta mana lagu shaqaysanaayo. haddii aan dhalinyaro nahay oo maliibaanayaasha lagu liibaanin loo baxshay, maanta waan soo taagannahay. dhalinyaradeena 30 jirada ah, 35 ilaa 25 ilaa 20 jiradeena wixii uu maanta ciidanka dowladda ku jiro waa ay fahmeen wax walbo. hadday ciidan yihiin maxaa la dhahaa tababar ku maqan, iyo ciidanka lookalka joogaba hadda gudaha ku sugan, waa ciidan qaran. hadday dowladdu ay ciidankeedu ay jubbaland geysayne, dowladdu ayadaa mas-uulka ah. jubbaland kaliya mas-uulka ma aha. adiga jubbaland haddaa mas-uul ka tahay, waxaa lagugu talagalay inaad ka shaqayso arrimaha bulshada sida iskuulaadka, waxbarashada, caafimaadka, faya dhowrka, ma fahantay? laakiin xuduudaha, lacagta, siyaasadda arrimaha dibadda waxaa iska leh, iyo immigrationada iyo ciidanka, intaasoo dhan waxaa iska leh dowladda federaalka soomaaliya. adigaas waxaa leedahay wixii gudaha lookalka ah. waddamada aan ku sugannahay federaalism wuu ka jiraa, laakiin lama arkin xildhibaano iyo wasiiro meel ka soo jeeda. marka waxaan leeyahay siyaasadda dowladdu aad bay u wanaagsan tahay waqti xaadirkan. maantana waad aragteen khayre oo furay maxaa la lahaa garoonkii baraawe. so dowladdu waa ay socotaa, waxweyna way qabanaysaa. garoonka diyaaradaha muqdisho waad aragtaan in la dhisaayo. so waxaan idin leeyahay siyaasadda lookalka ah iyo siyaasadda dowladda ee arrimaha dibadda inaad kala saartaan. haddaad la shirtaan dowladaha kalena waxay idin soo gudbinayaan ma jirtee inay idin kala qaybiyaan un keliya ayay meesha u joogaan. marka waxaan leeyahay ummaddeeda soomaaliyeed, dowladnimaana deeqda, wax kaloona deeqa ma lahan. siyaasadda ay ciyaarayso dowladda federaalka soomaaliya waa siyaasad lagu qanci karo. maxaa la dhahaa, hirshabeelle gacantay ku jirtaa, gobolka banaadir gacanta ku jiraa, koonfur galbeed gacantay ku jirtaa, galmudug gacantay ku jirtaa, jubbaland waxaa waaya haafaa laga qabtay, fahanti? puntland waxay ka cabaadeysaa ciidanka haramcad ama libaax ama yaxaas ha loo bixiye. ciidanku waa ciidankii qaranka soomaaliya. meel walba oo soomaaliya ahne waa in ay cagta dhigaan. taasi ma ahan wax loo aabiyeelayo. madaxdii way cabaadeysaa. haddi waxay leeyihiin ciidankana lagu soo tababaraya hana laga joojiyo. haddii aan lasoo tababarin yaa laguu soo tababari lahay? ciidamo heebtaada ah ma laguu soo tababari lahay? waa maya. marka barnaamijkayga mar walba waa baraarujin. waxaana leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed meel walba aad joogtaan isku tiirsanaada oo ahaada ul iyo diirkeed. wixii idin kala goynaayane iska saara. qabiilka iyo dadka qaarkiis ee siyaasadaha ee ka hadla sida ninka
bacalwaan maa lahaa ee jooga south africa iyo ninka cali mu'min la dhaho iyo dadkaas qoraalladoodaan soo dhigaya ayagoo isbeeninayo waan soo dhigi doonaa waana ka falanqoon doonaa insha allah. waxaa waaye dadka oo xumaanta ku taagan aan rabaa inaan xumaantooda aan dadka u sheego, wanaagna aan ku bedelo si ay ayagu wanaagga u qaataan. marka waxaan leeyahay haddii aad janalkayga ku cusub tahay, share inoo dheh, subscribe noo saar si aad ula socoto barnaamijyada kale soo socda. waxaana leeyahay kusoo dhawaada mar kale janalkayga. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.